بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على سيد الكونين سيدنا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن تبع نهجه الغويب. إخوة الكرام، أنا شيخ عبد القادر، الشيخ محمد، الشيخ أبو بكر، الشيخ سومو أفاينك يقولها بود علوم صوماليات، وحان هل كان جعل يسدئين عيد الله وداغه فرحدة يوهيرينتا iyo in aan isugu taaniyadeyno guusha ay gaareen dadka jecel nabiga sallallahu alayhi wasallam. waxaan rabaa in halkan ummadin uga diro dhammaan ummadda Soomaaliyeed meel kasta ay joogaan, culimada diinka, aqoonyahanka, waxgaradka, odayaasha dhaqanka, haweenka, dhalinyarada ka dhiibiyay arrinta tan, dhammaan intii ajiibtay baaqay dal iyo dibad, dadka u wada istaagay jacaylka nabiga calayhi salaatu wasalaam. waxaan rabaa inaan sidoo kaleeto u mahad celiyo madaxda qaranka ugu horeeya, madaxweynaha, ra'iisul wasaaraha, golaha wasiirada, gudoomiyaha gobolka Banaadir, aqalka sare iyo baarlamaanka oo nala gartay, nala qaatay, qiimeeyay rabitaanka shacabka Soomaaliyeed, joojiyay muxaadaradii aan codsanay in la joojiyo oo si guud loo joojiyo. waxaan rabaa anigu arrintan fursaddan ka faa'iidaysanayo inaan baaqalkan uga diro xoogaga ku boobay difaaca nabiga salawatullahi wasalaamu calayhi oo u istaageen inay difaacaan xabiibkayna, kuna baaqay in la qabto banaanbax aad u weyna badan, in la joojiyo banaanbaxaas maadaama dowladda Soomaaliya ay iclaamisay in la fuliyay dalabkii oo ahaa in la joojiyo bilkulliya, in la joojiyo muxaadaradii ka dhici lahaday garoonka injineeriso. waxaan ilaahay walaalayaal in aan kulligayna u wada istaagno difaaca qaranka, sugidda amniga, dowladdana garab ku siino, fikirka xag jirka asaa u diidayno in ay shabaabku noogu soo dhuntaan iyo dadka xag jirinta ah ay amniga waxyeeleeyaan, anukoo taas diidayna, anukoo mabaadida lagu yaqaan ahlusunna waljamaaca ay tahay in ay nabadgelyada iyo dowladnimada nabadgelyada ka shaqayso, dowladnimadana ay difaacdo. waxaan inka codsahaa mar labaad iyo mar saddexaad cod dheer inkaga codsahaa in la joojiyo banaanbixii biri lagu ballansanaa laga bilaabo hadda oo idinla hadlaayo. sidoo kaleeto waxaa madaxda qaranka ka codsahayaa in ay fulinta ballanta ay qaadeen sidiisii u fuliyaan. waxaana shacabkiini, culimmadiini, waxaata madaxdayni qarankaa tihiin, waa mahadsan tihiin. codsigayna aad aqbasheen waa inkaga mahad celinaynaa, sida geesinimada leh ee aad u qaadateen, oo madaxweynuhu u qaatay, oo xukuumaddu u qaadatay, sida wanaagsan oo aan isku wada waafaqnayn oo iskugu hambalyahaynaa. kulligeen waxaa naga dhexeeya dalka iyo dowladnimada iyo diinta, waana waajib inaan wada ilaalsanaa, inaan wada ilaalinaa dowladnimada, waa waajib inaan wada ilaalinaa diintayna, waa waajib inaan wada ilaalino dalkayna, waa waajib inaan wada ilaalino wada jirka ummadayna, waa waajib inaan u midownaa in aan kulligayna shacabka Soomaaliyeed lagu faafin afkaarta xag jirka ah. وما سنتهن والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.